Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wuxuu ahaa John Paul qof aan yaraantiisii arkin nolol wanaagsan oo farxad leh. Waxaa laga fogeeyay hooyadiis iyadoo lagu dhex tuuray xarun lagu xanaaneeyo carruurta. Waalidkood ay awoodi waayeen in ay koriyaan. Duruuftaasi qallafsan ayuu ku soo barbaaray John, kadibna wuxuu ka baxsaday xaruntii asigoo ka mid noqday koox burcad ah. Kadibna John Paul wuxuu noqday aasaasaha shirkadda John Paul Marshall ee soo saarta waxyaabaha timaha la marsado. Hadda hantidiisu waxay gaaraysaa $3 bilyan. Wuxuu dhashay John Paul di Georgia 17 Abriil sanadkii 1944, wuxuuna ku dhashay wilaayada California, gaar ahaan magaalada Los Angeles. Waxaa waalidiin u ahaa aabba Talyaani ah iyo hooyo Greek ah, kuwa oo kala tagay Paul oo 2 sano jir ah. Paul ayaa asigoo 9 sano jir ah suuqa ku wareejin jiray joornaal, lacagtii uu ka helana wuxuu u keeni jiray hooyadii, taa oo ayadan reerka biil ugu dhigi jirtay. Paul ayaa ku biiray dugsiga hoose ee Adwar, kadibna wuxuu u sii gudbay dugsiga sare ee John Marshall, halkaas uu ku dhameeyay waxbarashadii dugsiga sare. John Paul ma helin yaraantiisii wax farxad ah oo la sheegi karo. Waxay maamulka magaalada Los Angeles xaqiijiyeen in hooyada dhashay John Paul awoodin korinta iyo masruufida wiilkeeda John Paul. Sidaa daraaddeed John Paul waxaa lagu dhex tuuray xarun lagu xanaaneeyo carruurta ay dhaleen waalidiinta danyarta ah. Ka mid noqoshada carruurta xaruntaani John waxay ku keentay inuu si xun u niyijabo, aakhirkiina ka baxsado xarunta, kadibna ku biiro burcadda magaalada. Asigoo xaaladdaani burcadnimada ku dhex jira ayay maalin waxay kulmeen macallinkiisii xisaabta u dhigi jiray. Macallinka ayaa John Paul ku dhahay kelmado qiiro leh oo John Paul ku qasbi kolkii dambe inuu ka leexdo waddada xun una bayro dariiqa wanaagga iyo horumarka. Oraayadaasi waxay ahaayeen: Johnow, haddii aad ku sii socoto waddadaani waad khasaaraysaa, wax guul ah gaari maysid. Iska jooji carada iyo xanaaqa aad u hayso nolosha, iskuna day in aad gasho halgan dhab ah. Waa hubaal in aad guulaysan doontee. John waxaa qalbigiisa degay hadalladii macallinkiisa, wuxuuna isaga tegay shaqadii burcadnimada asigoo galay safarkiisii baadigoobka guusha. Isla markaana wuxuu ku biiray ciidanka badda ee dalka Mareykanka. 2 sano ayuu askari ahaa, kadibna wuu isaga tegay askarinimadii. Wuxuuna isku dayay dhowr jeer in uu bilaabo waxbarasho jaamacadeed, laakiin ma haysanin qarashaad uu ku socodsiin karo waxbarashada jaamacadda. Sidaa daraaddeed wuxuu u tafaxaytay shaqo raadin, wuxuuna shaqo ka helay warshad soo saarta waxyaabaha timaha lagu qurxiyo, halkaa oo kolkii dambe laga ceyriyay kadib markii uu ka hor yimid aragtida iyo istiraatiijiyadda milkiilaha warshadda. John Paul iyo saaxiibkiisa Paul Marshall ayaa sanadkii 1980 $700 ku aasaasay shirkad ay magac uga dhigeen John Paul, taas oo ka shaqaysa soo saaridda iyo farsamaynta waxyaabaha timaha lagu qurxiyo. Wixii ugu horreeyay ay soo saartay shirkaddani wuxuu ahaa shaambo lagu mayrto timaha, laakiin 2 sano ee ugu horreeyay shirkadda xaaladdeeda way adkeed. Laakiin sanadkii 3 oo ku beegan 1983 ayay shirkadda iibsatay beer weyn oo ku taal Hawaii, isla markaana ku shaqaysa kulka cadceedda. Beertaani ayaa sanad walba soo saarta waxyaabaha laga sameeyo shaambada iyo guud ahaan waxyaabaha lagu qurxiyo timaha. Waxay shirkadda sanadkii 1987 soo saartay shaamba ay ka samaysay saliidda geedka shaaha. Shirkadda ayaa xoolo badan heshay intii u dhaxaysay sanadihii 1987 ilaa 1991. Sanadkii 1990 shirkadda waxay soo saartay shaamba ay ugu tala gashay carruurta, taas oo indhaha ilmaha aan dhib u geysanaynin. Waxayna shirkadda shaambadan magac ugu dhigtay Baby Do Not Cry. Shirkadda ayaa sanadkii 2009 dunida ku yeelatay 100 farac. John ayaa markii uu noqday maalqabeen weyn oo dunida caan ka ah. Wuxuu milicsaday dhanka qaaradda Afrika, waxayna indhihiisa qabteen carruur u badan agoon oo ay gaajada dubatay. John ayaa isla markiiba dib u xasuustay dhibaatadii uu soo maray carruurnimadiisa, kadibna wuxuu Afrika ka bilaabay barnaamij lagu daryeelayo carruurta Afrika, asigoona sanad walba quudiya 17,000 oo ciyaal agoon ah.